muuqaalka aad arkaysaan waa saldhigga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waa saldhigga ugu dambeeyay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si toos ah u wareegaan gacan ku hayntooda iyadoo maalinta shalayta ciidamada gacan ku haynta ay la wareegeen saldhigga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan soo kalna xarunta dawladda oo saaka subaxnimadii hore ay galeen guud ahaan goobaha ay galeen ma jirin wax dhibaato ah oo ka dhacay marka laga reebay israasaaseen shal dhaxmartay ciidamada gudaha degmada Matabaan madaxa xukuumadda dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye iyo gudoomiyaha degmada Dhuusamare Macalin Nuur Calmi Cabdulle oo siyaabo kala duwan ula hadlay warbaahinta ayaa guud ahaantood bulshada ugu niyad qabo xaaladda caasimadda Dhuusamare ee xarunta maamul goboleedka Galmudug waa nabad wax arqalada ah iyo wax culays oo ka jira ma jiraan waxaan u cadeynaynaa bulshada Soomaaliyeed cid kasta oo danaynaysa magaaladu waa amni ammaankeeda waxa gacanta ku haya ciidamadii isku dhafka ahay ee hore lagu wareejiyay ciidamada dawladda ayaa gacanta ku haya gaar ahaan waxa gacanta ku haya ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliska waxaan leenahay magaaladu waa nabad wax arqalada iyo wax isku socod bulshada wax u dhibaya midna kama jiraan wax ka dhaco dhibana ma jiraan kadib ayaa waxa warbaahinta ayana kula hadlay gudaha saldhigga degmada Gurceel saraakiisha ciidamada iyagoo ammaanka sugaya degmada meeshan joogna waa saldhigga degmada Gurceel wax amni darraa oo ka jira saaka ma jiraan waxyaabihii bariyahan jiray oo dhacdhacaya xaaladooda waa la xaliyay waxay saaka diyaar u tahay dadka inay u shaqeeyaan oo si nabada lagu shaqeeyo saldhiggan wax dhib ah oo ka jira saaka ma jiraan dad waxaan arkay Facebook-yada iyo baraha bulshada ku soo qoraya waxyaabo dawladnimada iyo sharafta iyo nabadda intaba ka fog waxaasi waxay noqonayaan qalqalka bulshada hal iska daayo saldhiggan Gurceel waa saldhigga ugu nabdoon waa meesha qawaarijda lagala dagaalamay oo cadawga Soomaaliya koow lagala dagaalamay waa meeshii guusha Soomaaliya hooyada u ah ma mudna maanta oo la marayo 2019 in qalalaaso kale iyo dhibaato kale ay ka dhacaan waxaasi wax la ogolaan kara iyo wax la qaadan kara ma ahan wiilasha wada dhashay oo qaranka wada inay isdilaan ama qoriyo isku qaataan ama dhig iska daadiyaan xaraam oo ay cadawganaga 100 kiiloomitir iyo wax yar jira asaga noo balana inaan la dagaalno ninkii xabad raba iyo ninkii dhib raba iyo ninkii dhiig raba dhiigooda banaan xabadooda banaan wax ka qabadkooda banaan waxaan ka codsanayaa dhammaan bulshada degmada Gurceel inay la shaqeeyaan ciidamada amniga lagu wareejiyay waxa wareejiyay marka la leeyahay maahan dad cirka ka soo dhacay inay meesha yimaadeen maahan dad meel kale laga keenay inay ka shaqeynayaan waxay ka shaqeynayaan waa ciidamadii joogi jiray 12 sano iyo inta amniga sugi jiray iyo kuwa lagu soo beeriyo ku yimid intaba saraakiishii hore way shaqeynaysaa maahan inaysan shaqeynaynin waxaan codsanayaa marka in ay la shaqeeyaan shacabka degmada Gurceel kadib 24 saac oo walaac xoogan oo soo wajahay qaybo kamid ah bulshada deegaanada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ku nool ayaa xalku yahay mid aad uga soo reynaya xilli adala kala duwan oo guud ahaan la qaboojin u sameynaya shacabku ay ka soo yeerayaan madaxda dawladda iyo kuwa la sunna Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamare